Xiddigaha cirka inoogu muuqda habeenkii, khubarada cilmigu xiddigahaasi waxay ku tilmaameen inay gaarayaan ilaa 10,000 oo xiddigood. Waa inta habeenkii soo muuqata oo qofku arki karo, balse isku raranka Milky Way oo keliya ayaa leh ilaa 100 bilyan oo xiddigood. Xiddigta inoogu dhow waxaa lagu magacaabaa Proxima Centauri. Bilowgii qarnigii tegay ayaa la sahmiyay. Waxay inoo jirtaa masaafo lagu qiyaaso markii la joogo cabbirka ilaaska 4 sano. Haddii bini'aadamku uu isku dayo inuu gaaro xiddigtaas asigoo adeegsanaya agabkiisa ugu dheereeya ee uu farsamaystay, tusaale ahaan Voyager oo ah agab aad u dheereeya oo halkii ilbiriqsi jira 17 kiiloomitir ama halkii saac jaraya 38,000 oo mayl, waxa ay ku qaadanaysaa inuu gaaro Proximus muddo lagu qiyaaso 73,000 oo sano. Waa 73,000 oo sano. Xogo kale ayaa tilmaamaya 80,000 oo sano. Proximus waa xiddig yar oo ka yar teena qoraxda ah markii la joogo cabbirka ilaaska. Haddii la hindhiso qalab jaraya xawaaraha ilaaska oo jaro oo kale oo ah halkii ilbiriqsi inuu socon karo 186,000 oo mayl, waxay ku qaadan kartaa inuu gaaro muddo 4 sano ah. Laakiin sinaba macquul uma aha in agabku xawaare ah ilaaska la hindhiso. Hal ilbiriqsi 186,000 oo mayl ayuu jaraa ilaaska qoraxdu. Xiddigtani waa tan inoogu dhow, waxa ayna qaadanaysaa ku dhowaad 100,000 oo sano in la gaaro oogadeeda. Xiddigta Betelgeuse oo isla ka mid ah isku rarankeena waxay inoo jirtaa 640 sano. Iyadu waxay qaadan si loo gaaro 8 milyan oo sano. Hadda xiddigtaas aan ka hadlayo hal galaksi baan ku wada jirnaa oo koonkan ka ah dhibicda oo kale. Betelgeuse waa xiddig aad u ifta, waxayna la eg tahay 1,000 qoraxood, kana balac weyn tahay 330 jeer wax ku dhow qoraxda. Saynisaanadu waxay qabaan haddii ay ku jir lahayd booska xiddigteena qoraxda oo iyada qorax noo ahaan lahayd, waxay cuni lahayd oo laqi lahayd meerayaasha duusa, waxarixir, dhul, Ferrari iyo duceyba. Haddii aan afka qalaad ku dhahane, Mercury, Venus, Earth, Mars iyo Jupiter iyadoo xaaladeeda caadiga ku jirta. Xiddigta sidaas weyn in la gaaro 8 milyan oo sano ayay qaadan, tan inoogu dhowna 80,000 oo sano wax ku dhow. Labadooduba waxay ka mid yihiin galaksigeenna oo maba aha meel ka baxsan. Bal qiyaas baaxadda koonkan haddiiba hal xiddig oo hal isku raran gudihiisa aan kula jirno aynu ku gaari karno ilaa 8 milyan oo sano. Mid ka mid ah baaweynta ku tixan janaalka ayaa jeclaystay inuu u faa'iideeyo sida afkeena Soomaaliya loogu dhaho meerayaasha. Meerayaasha luqad kasta magacyo ayay u yaqaanaan oo ma aha kuwa luqado kale laga keenay. 8 meere sidaan baa afkeena hooyo ee Soomaaliya lagu dhahaa. Duusa, waxarixir, dhul, Ferrari oo lagu naanayso meeraha cas, irjeex, raage, Urano iyo ducey. Markii afka qalaad aan dul saarane, duusa waxaa loo yaqaanaa Mercury, waxarixir waxaa loo yaqaanaa Venus, dhul waxaa loo yaqaanaa Earth, Ferrari waxaa loo yaqaanaa Mars, irjeex waxaa loo yaqaanaa Jupiter, raage waxaa loo yaqaanaa Saturn, Urano waxaa loo yaqaanaa Uranus, duceyna waxaa loo yaqaanaa Neptune. Siday iskugu xigaan bay qoraxda ugu dhow yihiin. Duusa baa ugu dhow, ducey baana ugu fog. Afarta hore lakabyo ayay ka samaysan yihiin ama dhagaxaan, waana kuwo yaryar si aad u cuf weyn. Afarta dambana neefyo ayay ka samaysan yihiin, waana kuwo aad u waaweyn si aad u cuf yar. Waxaa soo raaca meero yar oo Pluto la dhaho oo hore loo aqoonsanaa inuu baxda cadceedu ka mid yahay, si 2006 laga saaray kadib markii la ogaaday masaafada fog ee uu jiro.